dalkeena qofka hal abuurka leh kuma helo dhiirigelin iyo dhaqaale uu ku horumarin karo hal abuurkiisa. Inta aan energy-ga hayno ee aan soo jeednana taageero ma helno. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo loo garan og yahay mahadalle waa hal abuur daayar oo tamar badan u haya wax soo saar anfacaya dalkeena haddii uu helo dhiirigelin iyo dhaqaale oo ku hana qaadi karo. Sanadkan ayuu ka qalin jabiyay dugsiga sare farsamada gacanta ee Bruges. jaamacaddana waxaa u qorshaysan inuu ka barto maadada injineerinka oo hal abuurkeeda leeyahay. waa 16 sano jir awood u leh samaynta iyo nashqadeynta waxyaabahan idiin muuqda iyo agabyo kale oo artisku uu ka mid yahay. waxyaabaha asmeekar waxaa ka mid ah naqshadaha guryaha oo qaab model ah u samaysan, hab model u samaysan oo kartoon ka samaysan. waxaa kaloo sameyn karaa artiska oo painting ah, waxaa kaloo sameyn karaa artiska oo farshaxanka gacanta ah. guryahan waxaa ka sameeyay horta kartoon. guryaha kan keeyay ugu horeeyay ma ahan, waxaa ka horeeyay guryo badan. kan waa keeyay lixaad, waxaa kaloo dhigi karaa keeyay toddobaad. gurigii ugu horeeyay naqshadii ugu horeeyay waa iga fashilmay oo waan ku guuldareystay. kadib waxaan sameeyay masjid aad u balaaran. kadib waxaan sameeyay guri villa casri ah. waxaa ku xigay dabaq 3 biyaan ah. waxaa ku sii xigay iskuul oo dugsi waxbarasho ah oo iskuul hab casri ah u dhisan. waxaa ka dambeeyay guri villa oo hab model Peter Germany u dhisan oo hab casri ah u dhisan. maantana alxamdulillah waa kana guriyana sameeyay. injineerkan da'da yar ee mahadalle waxa uu ii sheegay inuu fursado badan uusan u helin samaynta agabyada iyo nashqadeynta guryaha, laakiin uu ku nasto kaliya marka uu fasaxa ku jiro. waxyaabahan ani fursad fiican uma helo. haddii aan fursad fiican u heli lahay waxaa sameyn lahay guryo kuwan ka sii casrisan, kana sii qurxan, kana sii tayo badan. hadda kaliya waxaan sameeyaa waqtiga aan fasaxa ahay, sida 2 bil fasaxa oo kale, maalmaha khamiista jimcada oo kale. waxaa kaloo waan ku nastaa xilliyada aan nasto macnaha hobbigayga oo macnaha waqtiga ku qaata. waxaan aaminsanahay haddii aan helo dhiirigelin iyo waqti ka fiican, waxaan aaminsanahay inaan soo saari karo wax kan ka duwan kana sii casrisan. waxaan kula kulmay hoygiisa isaga oo ku mashquulsan samaynta nashqadahan quruxda badan ee ka samaysan kartoomada iyo agabyada kale oo uu sameeyey muddadii koobneed ee aan la joogay. waxaana weydiiyey mustaqbalka waxa uu jeclaan lahaa inuu ku soo kordhiyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed. mustaqbalka waxaan jeclahay inaan dhismaha wadanka wax badan ka bedelo. habka hadda uu dhisan yahay si ka sii casrisan, ka sii tayo badan, kana sii qurxan, oo aan aaminsanahay in aan wax badan ka bedeli karo dib u dhiska dalka iyo qurxinta wadanka. tusaale ahaan anigoo intaan ka sii ayaan waxay sameynayay guri kuwan ka sii qurxan. kadib markii hore fikraddan waxay u dhalatay aniga 7 sano jira. markii aan sameeyay artiska gacanta farshaxanka, kadib walaashay iyo familka waxay arkay in aan hibo leeyahay. kadib iskuulka ayaa lii bedelay oo waxaa la geeyay dugsiga sare ee farsamada gacanta Bruges. halkaas aan kaga sii watay geedigayga waxbarasho ee injineerinimo. gabagabadii sheekadeenna waxa uu fariin kooban u dirayaa dhalinyarada hal abuurka leh. Inta adira waxay tahay in ay dhalinyarada wax maskaxda ku buuxayo hobbigooda ay rumeeyaan, ay u bedelaan wax la arki karo si reality. sidaan oo kale waxaana dirayaa in dhalinyarada la caawiyo inta caboon yihiin. Jacfar Maxamed, Asal TV, Muqdisho.